sida cadceedu subax walba u soo baxayso ayaa horumarka Puntlandna u siyaadayay sanad kasta. inta haleeshay maalin walba horumarka siyaadaya waxa ka mid ah booliska Puntland oo hadba heer ha soo mare maantana haya hilinkii loo qorsheeyay. iski dalkanahay hal u kala dhigno inta aynan mid walba halkiisa ugu tagin oo aan ku bilowno nabadgelyada ilaalinteeda oo inta loo dhafray dharaar walba cadceed la isu taagay dejinta qorshe booliis oo loo kala horumariyay qaab mudnaan leh dib u habaynta xafiisyada ilaalinta hantida dawlo iyo midda dadweyne xoojinta isgaarsiinta iyo joogtaynta xiriirka ciidamada hirgelinta database xafidan iyo la jaanqaadista tiknoolajiyada koraysa oo hormuud uga dhigaysa booliska Puntland Soomaaliya joogtaynta tababarada booliiska iyo taabagelinta manhajyo ciidan oo la hirgeliyay iyo qaadashada dhalinyarada aqoon-yahanka oo ka soo dhalaalay booliiska dhexdiisa sidoo kale waxa ka mid ah dhismayaasha saldhigyo cusub dhaqangelinta sharciga soo dhaweynta shacabka iyo dhowrista direeska ciidanka intuba waa arrimaha hirgalay intii uu xilka hayay taliyaha maanta wareejinaya sareeyo guuto Cabdiyare laakiin aan dib u jaleecno dharaarihii la soo dhaafay ee adka inkastoo ay karaankooda kobcayeen booliiska ilaa maalintii Puntland la aasaasay haddana waxaa jirtay kala daadsanaan soo dhawaatay kuwaas oo ay ugu darnayd ciidamada kala dharka ah kalana fadhiga ah tababar aan isu dheelitirayn dhalinyarada waxbaratay oo aan booskooda helin bulshada qaybta ugu mudan waa haweenka oo aan qudhooda qaabkan ciidanka uga dhex muuqan kuwa kale oo mudan inaan xasuusanno waxaa ka mid ah kaydka xogta oo xaashi iyo qalin ahaa xiriirka booliiska oo hooseeyay iyo xoolaha ciidan waa gaadiid iyo wixii la gada ah oo baasana barala'aan ka kaalay oo xirbaabkaas kuna bilow kal hore kolkii la magacaabay taliyaha maanta xafiiska wareejinaya oo u kala tartiibi tabta horumarka ciidanka booliisku u kala horeeyay xaaladda guud ee amniga ku bilow sugidda amniga iyo xoojinta xasilloonida Puntland waa mas'uuliyadeena shaqo nabadgelyadu waa mid wanaagsan ciidanka booliisku wuxuu dadaal dheer ugu jiraa in bulshada ku nool Puntland ay helaan amni iyo nabadgelyo la isku halayn karo waxaana hoos u dhacay falalkii argagixiso ee ka dhici jiray Puntland gaar ahaan gobolada bari iyo mudug kadib dadaal dheer iyo dardargelin lagu sameeyay qaybaha booliiska goboladaas gobolka bari waxaa dib u habayn lagu sameeyay ciidamada booliiska ee ka howlgali jiray iyadoo xiriir wanaagsan lala yeeshay bulshada ku nool gobolka bari waxaa sidoo kale ciidamo dheeraad ah oo booliis la geeyay magaalada Boosaaso gaar ahaan wixii ka dambeeyay weerarkii xabsiga weyn ee magaaladaasi howlgallo ay fuliyeen ciidanka booliiska gobolka bari waxaa lagu soo qabqabtay xubno badan oo argagixisa ah iyo kuwa looga shakisan yahay taasi waxay keentay inaysan dhicin wax fal argagixisa bishii Ramadaan ee la soo dhaafay taasoo markii ugu horeysay muddo 10 sano ah waxa howlgallo ciidamada booliiska Puntland ay ka sameeyeen gobolka Mudug iyaga oo kaashanaya hay'adaha kale ee amniga gobolka Mudug laguna bartilmaameedsaday kooxihii ka fulin jiray falalka dilka qorshaysan gaar ahaan magaalada Gaalkacyo muddo ka badan 14 sano waxaana ciidanka booliiska u suurta gashay in ay gacanta ku soo dhigaan dhammaan kuwa geystay falalkaasi muddadii dhoweyd iyo midii dheerayd ilaa muddo ku siman 14 sano dadkii la dilayay kuwii dilayay ayay soo qabteen waxqabadka iyo qorshayaasha taliska booliiska dawladda Puntland dib u habeynta iyo tababarada ciidanka booliiska Puntland muddada halka sano ahayd uu hogaaminayay xafiiska taliska booliiska sareeyo guuto Cabdiyare waxaa lagu guuleystay in tababar loo furo ayna ka baxaan ciidan ka badan 1600 oo askari oo kala ah ciidanka booliiska gobolka Nugaal gobolka Mudug gobolka Karkaar gobolka Sanaag gobolka Highland gobolka Gardaafo iyo gobolka Bari ciidanka ilaalada canshuuraha ciidanka wadooyinka ciidanka Bamboyda iyo ciidanka CID-da sidoo kale waxaa maalmo ka hor tababar loo soo xiray cutubyo kale oo ka tirsan ciidamada booliiska gobolka Sool gobolka Cayn iyo qaybo ka mid ah gobolka Nugaal dhammaan ciidamadaasi galay tababarka waxaa loo kordhiyay mushaharkoodii sidoo kalena waxaa loo tayeeyay direeskooda iyo agabka ay ku howlgalayaan sida gaadiidka iyo isgaarsiinta dib u habeynta xafiiska maamulka hantida iyo isgaarsiinta waxaa qalabayn iyo dib u dhis lagu sameeyay xafiiska maamulka hantida iyo isgaarsiinta booliiska taas oo sahli doonta ilaalinta hantida gaar ahaan gaadiidka oo lagu xiray qalabka la socodka gaadiidka ee GPS-ka kaas oo laga maamuli doono xarunta dhexe ee taliska booliiska Puntland sidoo kale waxaa qayb ka qalab isgaarsiineed oo booliiska Puntland si isku tashi ah u gatay kuwaas oo la dhigay Garowe iyo Boosaaso horumarinta nidaamka casriga ah ee database-ka oo uu yeeshay booliiska Puntland markii ugu horeysay ee laga hirgeliyo Soomaaliya nidaam noocan ah
waxaa lagu guulaystay in la sameeyo wejiga koowaad ee nidaamka casriga ah ee database-ka IMS kaas oo wax badan ka bedeli doona shaqada booliiska Puntland. barnaamijkan oo midayn doona kiisaska ka dhaca Puntland kaas oo sahlaya in qaab digital ay isugu xirmaan saldhigyada CID-da, forensic science-ka, xeer ilaalinta ilaa heer maxkamadeed kaas oo ciidamada u bedeli doona nidaamkii hore ee qadiimiga ahaa oo lahaa caqabadaha badan ee ku gadaaman. sidoo kale barnaamijkan waxa uu ka shaqayn doonaa ka qayb qaadashada hubinta dambi la'aanta, diiwaangelinta dadka lagu raad joogo ee wantedka ah kaas oo ku xirmi doona booliiska caalamiga ah ee Interpol, kastamyada iyo qaybta diiwaangelinta hubka. sidoo kale waxay qayb ka tahay in booliisku u guuro nidaamka casriga ah ee digitalka kaas oo ku shaqeeya qalabka faraha ee loo yaqaano fingerprint devices iyo kombiyuutarro qayb ka mid ah hadda la dhigay loona dhammaystiri doono dhammaan saldhigyada booliiska gobolada Puntland. nidaamka casriga ah ee IMS hadda wuxuu si toos ah uga shaqeeyaa gobolada Nugaal, Mudug iyo qaybta hubinta dambi la'aanta CID-da ee gobolka Bari. tababarada nidaamka casriga ah ee IMS taliska ciidanka booliiska Puntland isagoo ka duulaya hirgelinta nidaamkan waxaa tababaro la siiyay 36 qof oo ka kala yimi booliiska, xeer ilaalinta gobolka Nugaal iyo xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida xafiiska forensic science-ka iyo maxkamadda gobolka Nugaal. booliiska waxaa tababar loo dhameystiray ciidamada CID-da gobolka Nugaal, gobolada Bari iyo Mudug, saraakiisha saldhigyada gobolada Nugaal iyo Mudug, qaybaha hubinta dambi la'aanta CID-da ee gobolka Nugaal, gobolka Bari iyo Mudug, qaybta diiwaangelinta socdaallada gudaha iyo dibadda ee gobolada Nugaal iyo Mudug. waxaa sidoo kale bisha November la tababari doona 40 sarkaal oo booliis ah gaar ahaan CID-da, saldhigyada diiwaangelinta socdaallada iyo diiwaangelinta hubka. xoojinta iyo dardargelinta xiriirka saaxiibada booliiska taageera. markii xafiiska uu yimi taliyaha xilka wareejinaya waxaa bilowday in dardargelin lagu sameeyo xiriirka saaxiibada booliiska oo markii hore ahaa mid hooseeya taas oo wax badan booliiska ay uga luntay. sidaa darteed kadib xoojintii iyo dardargelintii xiriirka saaxiibada booliiska taageera waxaa booliiska Puntland uu helay qalab iyo gaadiid waaweyn iyo kuwa yaryar oo qayb ka ah mashruuca horumarinta booliiska ee Joint Police Program JPP. waxaa sidoo kale la bilaabay hirgelinta mashruuca horumarinta booliiska oo qayb ay ka yihiin tababaro kor loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadda saraakiisha booliiska, dib u habeynta maamulka xafiisyada booliiska iyo dhismayaasha saldhigyo cusub oo laga hirgelinayo dhammaan gobolada Puntland. dhamaystirka saldhigyada ciidamada booliiska Puntland waxaa la dhammaystiray saldhigyada 3 degmo oo kala ah Galdogob, Saaxo iyo Tawfiiq oo dhammaantood gobolka Mudug iyo degmada Baran ee gobolka Sanaag, kuwaas oo wax badan ka bedeli doona shaqada laguna dardargelin doono shaqada booliis ee degmooyinkaasi. gaadiidka ciidamada dawladda Puntland ee heleen sanadkan la soo dhaafay waxa ciidanka booliiska Puntland ay heleen gaadiid tiraba gaaraya 41 gaari oo isugu jira gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn. qaybo ka mid ah gawaaridaasi waxaa laga gaday miisaaniyadda Puntland, kuwa kalena waxaa lagu gaday oo isku tashi ku gaday booliiska, halka kuwana ay ka yimaadeen deeq bixiyayaasha saaxiibka la ah booliiska Puntland. la dagaalanka mukhadaraadka. ciidamadu waxa ay juhdi badan geliyeen in dhammaan deegaanada Puntland lagala dagaalamo waxyaalaha ammaanka doosha. sidoo kale booliiska Puntland waxaa jira wax loo diyaarshay ka hortagga rabshadaha oo si gaar ah u qalabaysan loona tababaray. haweenka iyo dhalinyarada waxaa la xoojiyay korna loo qaaday tirada haweenka ka mid noqonaya booliiska Puntland. waxaa la siiyay tababaro, qaar kalena waxaa loo leeliyay saraakiil. shaacin kadib waxaa la qaatay dhalinyarada wax ka barata dugsiyada iyo jaamacadaha kuwaas oo isu diiwaangeliyay booliiska Puntland. tani waa muhiim. waxaa halkii sano ugu dambeysay oo xilka taliyaha booliiska Puntland hayay Sareeyo Guuta Cabdi Xasan Xuseen la xoojiyay isu soo dhawaanshaha shacabka iyo booliiska Puntland, kuwaas oo loo sameeyay wada xiriir toos ah. tusaalaha ugu muhiimsan waa midan muujinaysa isdhexgalka shacabka iyo ciidamada booliiska oo sidan u wada socda. midan ayaa muujinaysa miradhalka tababarka ciidanka booliiska Puntland. waxaa si gaar ah subaxdan loo tababaraya ciidanka sugaya nabadgelyada doorasho ka dhacaysa 3 degmo oo Puntland ah. waa tan markii doorashadu soo dhamaatayna iyadoo muwaadin walba codkiisa ku soo dhiibtay nabadqab, qardho, ayl iyo ufayn. ciidamada booliiska Puntland waxa ay u diyaar yihiin sugidda amniga Puntland.